haddaba arrimahaas iyo qaska hadda taagan ayaa waxa aanu ka waraysanay wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Idris Ismaaciil Cabdi Xasan Cali Geelle ayuu u warramay waxaana marka hore uu Geelle weydiiyey wasiirku meesha uu joogo walaal hadda waxaan ku suganaa jigjiga goobta laga soo galay Karamadan buurta Karamadan dadka yaqaanaan madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xagee baad ku ogtahay walaal horta madaxweynaha Xasan Maxamuud markan baakaana diray Cabdinuur la wareegay ku jira xilligan waxaana soo gaaraya warar ah madaxweynaha dowlad deegaanka in uu ka baxay madaxtooyada saakayba uusan soo galin uu ku sugan yahay xara Leopolis ay leedahay isagoo ka cabsi qaba ciidamada militariga arrintaasi ma jirtaa walaal hadda ka soo tagay hadda xagee baa uga soo tagtay xafiiskiisa hadda uga soo tagay saaki ilaa hadda maaragtay magaalada xabad baa ka socota xalay nabad baa lagu saaxiday shacabka nabada xukuumadda maaragtay shaqadeeda saytay oo ay wadata saakan baa cid walba markay soo kacdo maaragtay guri walba ciidan waysan oo militariga maaragtay taagan inay qoriyay wada wataan magaalada dhan ma xafiisyadii goob walba baarlamaankii la hortaagan yahay goobta maaragtay shirki lagu gelayo si la hortaagan yahay saakan marka dadkii markay soo kaceen maaragtay dad maaragtay aqoonay ku hadlayeen ciidankana maaragtay qaranka wata ayaa maaragtay meesha ay isku halkiiba maaragtay shacabkii la xabaday dad baa maaragtay dhintay dad baa dhaawaca waan gartay waxaa tiri dhaawac iyo dhimasho ayaa jira dhaawaca iyo dhimashada maxaad noogu sheegi kartaa dhaawaca dhimashada telefoon hadda uma hay si fiican uma hay maadaama wili xabadan ay socoto oo report rasmiga wili maan ay soo gaarin laakiin dad badan oo maaragtay la dhaawacay iyo haween maaragtay wadada taagan oo maaragtay arrinta ay wadaan maaragtay ay kala halgamayaan oo maaragtay ciidanka toos maaragtay xabada ay u dhufanayaan xabadaynaan baa magaalada fawda ka dhacday sidaad sheegaysid waxaad leedahay dhaawaca jira waxaad leedahay dhimasho jirta arrintaasi yaa ka dambeeyay walaal saan ku sheegay dad shacab oo maaragtay saaka iyaga dhan la weeraray xafiisyadii la weeraray laamigii wadooyinkii dukaamihii nagu qoray oo wata markii la arkay maaragtay shacabkii iyaga maaragtay ay iska hor imaadeen ciidankana maaragtay sharci darro maaragtay dadku u xadaday ciidanka federaalka wax dadka xadaday Itoobiya intaan ognahay waa wadan federaal ah dowlad deegaanka Soomaalidana ay ka mid tahay dowladda Itoobiya ee federaalka ciidamadana waa kuwii federaalka sida aad sheegaysid tawaatan horta arrinta la leeyahay wadanka horta wuxuu ku dhisan yahay dastuur buu leeyahay nidaam federalism ayaa maaragtay ku salaysan yahay dastuurka wuxuu leeyahay weynuu mataqaana wax amni darro maaragtay gacanteeda ka baxsan ayaa jirta kaalihii caaweyn u dhaha deegaanka codsada mooyaane ciidan hubaysan inuu maaragtay waa beri oo dad nabada maaragtay dee weerar lagu soo qaado magaalada lasoo galo tan waa sharci darro maaragtay dastuurka ma ogol weligeedna lama arkin oo kolley dadka waxay arkeen qof maaragtay af oromo ku hadlaya dad ciidan wata waa arkeen muxuu ahaa ciidan dhar military wata wuu soo weeraray sababta dadka shacabka ka u qaateen oo uqdud bay u qabeen mar walba maaragtay oo oromada dhibaato inay u geysanaysid ay ogyihiin inay goobta sameyn doonta way ka fikirin jireen cabsi bay ka qabeen meesha aad joogtay magaalada jigjiga imisa kilomitir u jirtaa waxaa nagu maqaal ah in halkaasi aad u joogtaan in ciidamo ka soo baxay meel kale oo dowladda federaalka oo military ah aad ciidan u diyaariseen oo aad doonaysaan inaad weerartaan markay magaalada soo galayaan warkaasi ma jira maya waxaa jirta wax kale maaha shacabkii wadada maadaama ay xireen ay xanaaqsan yihiin wadadii baan leenahay taan baan u soo baxnay hadda leenahay wadada ka jooga taan baan u yimid shacabka gudaha magaalada jigjiga oo ay rabshadaha ka dhaceen ayay ku sugan yihiin adigana waxaad leedahay 5 ilaa 6 kilomitir ayaan magaalada u jira marka meeshaasi maxaad ka samaynaysaa taan baan u yimid horta xaaladda jirta xaggana xogkaaga oo u imaado qabileeshan aga dadkana maaragtay maadaama mas-uuliinka kuwa kale ay xaggan joogaan aan la hadlay nin walba mas-uuliin walba waa iskala qaymisooday xaaladan maaragtay dadka in lala hadlo la dejiye xaaladda taa in lagu saleeyo lagu wada hadlo maadaama ay taa go-aan aan ku wada qaadanay cid walba horta taa shaqaa ku jirta annaga taan baa shaqadeeda ka mid tahay laakiin way jirtaa soo maaha in buurtaasi aad ciidamo ku diyaariseen oo ciidamo ku sugan yihiin awal magaalada gudaheeda joogay horta ciidan maaragtay buur hadda saaranta ma jiro shacabba hadda markaan kula hadlay shacabkaan ka soo leexanaya wadada taagneed oo la hadlay waxaa kaloo jira in la sheegayay in saakayta aad doonaysaan inaad ku dhawaaqdaan in aad ka go'deen Itoobiya inteeda kale ciidamada militarigana ay sidaa u soo farageliyeen arrintaasi ma noo xaqiijin kartaa taa kolley meesha maaragtay haddii ciidanka xogtaas heleena meesha ka keenaan iyagaa garana laakiin soosaan kuu sheegay wadanka nidaam buu leeyahay dastuur buu leeyahay shaqada qaabkan nidaamkaasun baa lagu socon karaa
go-itaaniya fikir nooca toona ma jirin nidaamkii maaragtay xisbigii xukuumadda qaabkay ku shaqaynaysay dowladnimada federaalkun baan aaminsana taan baa nagaan ku soconay go-itaanka haddii lana fikir maaragtay qaldanna ma aha laakiin balse wax dastuur ku jira dhinacyo in ka soo horjeeda waxa ay leeyihiin waxani waa naqshad aad idinka ka soo shaqayseen dadka rabshadaha sameeyeyna waa liu boolis aad arkay ka bedeshaan oad shacab ka dhigteen arrintaasi ma jirtaa waxaa propaganda waxaan kuu sheegay qof maaragtay daciif oo maaragtay meelaha ka hadla maaragtay mowqif oo lahayn maaragtay xaggaa fadhiyo been uu sheega ma propaganda oo iska sheegana maaha wax la sameeye maaha hadda xukuumad baa maaragtay shacabkeeda maaragtay in la xabaday qorshe u samayni qof rayida maaragtay in la laayo xukuumadda qorshe usa samaysanaysa waa tee marka tan completely waa fikir qaldano maaragtay propagandada ay wadaan kaasi waxa uu ahaa idris ismaaciil cabdi wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka soomaalida waxa uu warramayay wariyaha b b c xasan cali geelle haddaba mushkiladan saaka un lagu waabariistay maxay salka ku haysaa maxamed maxamuud dheeg waa khabiir ka faallooda arrimaha gobolka si gaar ahna ugu dhuundaloola isbedelada etoobiya ka soconaya goor dhoweyd ayuu iiga warramay waxaa jirtay baryahanba sidaad ka warqabto shir ka bilowday shalay magaalada dirdhabo oo ay soo abaabuleen kooxda dulmidiid oo iyagu ah koox maaragtay si aada uga horjeeda siyaasadda maamulka soomaalida galka soomaalida oo isugu jirta aqoon-yahan indheergarad oday dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada marka waxaa jira warar sheegaya in maamulka kelilku uu isku dayay marar badan inuu carqaladeeyo shirka isaga ah taasoo tii ugu dambeysay ay shalay ka dhacday magaalada maaragtay diridhaba oo maaragtay in dadaalkaasi waxaas laga hortago isla mar ahaantana la fashiliyo sida ay ku andacoonayaan kooxda dulmidiid taas marka cadaadis weyn bay u arkeen maamulka kelilku inay ku tahay kooxda dulmidiid iyo shirka ay abaabulayso maadaama oday dhaqameedyo iyo aqoon-yahan ilaa 2,000 oo qof ah ay halkaa joogeen isla mar ahaantana ay ka hadlayeen sidii transition ahaan yani kala guurka looga guuri lahaa maamulka cabdiile maamul kale oo maaragtay cadaalad ahna loo diyaarin lahaa marka ilaa iyo shalay golaha kabinetka dowlad deegaanka soomaalida waxaa ka jiray booq fara badan iyo maaragtay sidii ay u waajihi lahayn arrimahaas iyadoo la hadal hayo xataa in maaragtay maamulka ama hormuudka maamulkaasi uu ka shanqariyey waxyaalaha ay ka mid yihiin maaragtay aan maaragtay markaa macquul ahayn oo maaragtay uu soo bandhigay meesha oo ah goonigoosad iyo waxyaala noocaas ah oo ahayd ujeedada keliya kolley laga dhahan karo inay ahayd un qaabkii xukunka loo siihayn lahaa iyo qaabkii maamulku kelilku uu sii jiri lahaa oo hormuudkaya marka waxaa isku xiranaa leedahay shirka diridhaba ka socday iyo militariga federaalka ee saaka lagu arkay magaalada jigjiga way dhaci kartaa inay maaragtay arrimahan xiriir leeyihiin hase ahaatee qolada maaragtay diridhaba maaragtay shirka ku qabsanaysa iyagu iskood ayay u wadeen oo maaragtay si gaar ah ayay maaragtay dadka deegaanka diridhaba gaar ahaan ugaaska beesha diridhaba ayaa halkaas maaragtay shirkan qabanqaabadiisa iyo maaragtay iyo soo dhaweyntiisa qayb libaax ka qaatay iyo barbaarta gobolka city oo ah barbaar yani koox maaragtay ka mida kooxaha u ololeeya xuquuqda dadka deegaanka soomaalida oo muddo 1 sano ka hor halkaas maaragtay aad looga abaabulay waayahay arrinta kale aan rabnay inaan ogaana waxay tahay dhinacyada ku lugta leh arrintan hadda mushkiladan hadda bannaanka timid maxay kala yihiin masawir guud naga sii dhinacyada ku lugta leh waa ilaa iyo dhowr waxaa ugu muhiimsan kooxda dulmidiid waa koox maaragtay inta badan qurbaha laga abaabulay oo u badan rag u ololeeya xuquuqda aadamaha ee gobolka iyo sidii maamul cadaalada oo wanaagsan oo maaragtay la jaan qaadi kara isbedelada Ethiopia looga yeegleeli lahaa dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga xubnaha kooxdani aad bay u fara badan yihiin waxaa hormuud ka ah Cabdirashiid Cali Shucaac Dr. Cabdiwaase Bashiir Garaad iyo Mustafa Cumar oo la dhihi karo waa hogaamiyaha ruuxiga ee kooxdan iyaga ah inta badanna baraha bulshada ay ku faafiyaan fikradahooda iyo aaraadooda iyo maaragtay howlaha wacyigelinta ay wadaan dhanka kale waxaa qayb ka ah kooxaha isku haya heego waa koox maaragtay kaadiriin u badan iyo maaragtay xubnaha xisbiga shaqaalaha dowlad deegaanka soomaalida oo iyaguna taageersan hogaaminta madaxweyne cabdi maxamed cumar labada kooxood ayaa ugu muhiimsan baan dhihi karaa laakiin waxaa jira yani kaalinta kale ee maaragtay jabhadda ONLF oo iyagu hadda
aad moodid inay bannaanka ka taageen ama ay daawanayaan waxa qaabka ay wax u dhacayaan laakiin xoog muhiima oo iyaguna maaragtay muddo ka soo dagaalamayay waddanka hadda inkastoo maaragtay kaalintooda siyaasadeed ay ka xoog badan tahay kaalintooda military waa hagaag saakay waxaa lagu waabariistay magaalada jigjiga militariga federaalka oo dhex taagan ma la sii filayey militarigu inay arrinta soo faragelin doonaan waa la filaya waa la dhihi karaa waa la filayey dadka u ole xuquuqda maaragtay kooxaan u ole xuquuqda aadamaha iyo maaragtay isxilqaamay iyo maaragtay in xukun wanaagsan laga yagleelo deegaanka Soomaalida waxa ay mar walba maaragtay ku boorinayeen dawladda federaalka inay tallaabo muhiim ah ka qaadato waxa ka dhacaya jigjiga ee xadgudubyo ah ee dhibaato ah ee maaragtay maamul xumo ah sidaa darteed si ay dawlad deegaanka Soomaalida isbedel dhab uga yeeleeyeen waa in la cadaadiyo ama meesha laga saaro maamulka hormuudka ka yahay Cabdi Maxamed Cumar ay ku andacoonayaan dadka ka horjeeda maaragtay maamulkaas maalmaha soo socda magaalada jigjiga iyo guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida maxaa laga fili karaa tallaabada iminka middan xigta maxay noqon kartaa runtii xaaladdu maanta dhibaato badan ayaa kale ka dhacday meeshaas waxa la sheegayaa in dad qoomiyadaha kale Itoobiya la balqaystay hantidoodii qoomiyada Guraaga iyo qoomiyadaha kale dad Oroma ama banka lagu magacaabo banka Oromia kaniisad weyn oo lagu gubay magaalada Dhagaxbuur dad maaragtay marka aan maaragtay abaabulnayn oo la dhihi karo dadkii maaragtay darbiyada ama ciyaal suuq ama maaragtay dadka noocaas ayaa maaragtay waxaan ka dambeeyay laakiin uma maleynay dad caadi ah oo maaragtay mabaadi'ile inay ka dambeeyaan kollayba arrinkaas in la xakameeyo ayaa muhiim ah haddii ay dowladda federaalku marka ku guulaysato inay arrimahan sida ay yihiin u soo afjarto isla mar ahaantaana ay maamulka kililka ama meesha ka wareejiso ama ay qaab kale ay arrimaha ku dhameeyaan waxaa la dhihi karaa xal baa imanaya haddii kale waxaa iman doona xaalad maaragtay fawda ah oo aan maaragtay la saadaalin karin wax ka dambeyn doona maxamed maxamuud dheeg ayuu ahaa oo masawir guud naga siinayey arinta salka u ah mushkiladda iminka ka taagan magaalada jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida wararkaasna wixii ku soo kordha waxaad mar walba kala socon doontaan barta internetka ee bbcsomali.com iyo idaacadaheena dambe